oo yasay hadalkiisa balse aad ayuu uga shalay arrinka. Waxaanu ka sheekayn doonaa qisada markii uu maamulaha shirkadda Ferrari uu yasay nin beeraley ah kaasoo dhisay kambaniga ugu weyn ee xafaaltan ku kala dhaxeeya Ferrari. Intayna u galin sheekada, waxaan ka codsanayaa inaad like saarto muuqaalka, share garaysidoo la wadaagto asxaabtaada si aynu u helno saaxiibo sidaadoo kale wanaagsan. Mahadsanid. Sanadku waxa uu ahaa 1963 Ferruccio Lamborghini waxa uu ahaa ganacsade guuleystay oo soo saaray cagafta beeraha lagu qodo. Maadaama uu Lamborghini ahaa maalqabeen, waxa uu soo iibsaday 2 gaari oo Ferrari ah, mid kala racad oo isagu soo iibsaday iyo mid madow oo xaaskiisa u soo gaday. Balse Ferruccio Lamborghini waxay cilad weyn ka haysatay kaleeshka gaarigiisa 3 ilaa 4 jeer ayuuna geeyay shirkadda Ferrari si loogu cilad bixiyo gaarigiisa. Balse markii ay ciladiisa waxba ka qaban waayeen, ayuu Ferruccio oo isagu ahaa makaanig u go'aansaday inuu sameeyo gaarigiisa. Waxa uu ogaaday halka ay ciladu ka jirto. Waxa uu u safray deegaanka Maranello oo ahaa meel u dhow si uu halkaas ugu kulmo maamulaha ahna mulkiilaha shirkadda Ferrari ee Enzo Ferrari. Ferruccio ayaa arrintii uga warbixiyay Enzo Ferrari isagoona siiyay talo uu ku xallin karo ciladan soo noqnoqonaysa ee ku dhacaysa baabuurta Ferrari-ga. Balse Enzo Ferrari waxa aad uga adkaatay inuu aqbalo cabashada iyo soo jeedinta ninkan beeraleyda ah ee Ferruccio Lamborghini. Enzo Ferrari halkii uu dhageysan lahaa soo jeedinta, waxa uu ugu jawaabay Ferruccio, aniga iidaa samaynta gawaarida, adiguna ku ekow samaynta cagafta. Ferruccio wuxuu aaday gurigiisa isagoo careysan, halkii si wanaagsan loo soo dhaweyn lahaa fikradiisa. Waxaa loogu jawaabay qaabkii ugu xumaa. Intii uu sii socday wadada, waxa uu gaaray go'aan masiiriya. Waxa uu go'aansaday inuu isaguba sameeyo baabuurta raaxada ee qaaliga ah, kuwaas oo ka dheereeya kana fiican Ferrari. Halkaas ayayna kaga dhalatay fikradda samaynta baabuurta caanka ah ee Lamborghini. Shaqadii ayuu isla markiiba bilaabay. Warshad yar ayuu ka dhisay deegaanka Santa Agata. 4 bilood gudahoodna waxa uu ku soo saaray gaarigii ugu horreeyay. Baabuurkaas ayaa lagu soo bandhigay bandhigga sanadlaha ah ee baabuurta oo ka dhacay magaalada Turin. 1964 ayay gaarigaas soo saareen, waxaana loo bixiyay Lamborghini 350 GT. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid sida ay Lamborghini ugu suura gashay inuu ku dhiso gaari dhan 4 bilood. Aan kuu sheego sirta. 2 sano ka hor dhacdadan, 5 nin ayaa soo galay xafiiska maamulaha shirkadda Ferrari ee Enzo Ferrari. 5 midna waxaa ka mid ahaa Carlo Gitti oo ahaa injineerka ugu sarreeya shirkadda Ferrari iyo maareeyaha horumarinta shirkaddaas ee Giotto Bezzerani. 5 nin oo ka mid ahaa shaqaalaha ugu sarreeya shirkadda Ferrari ayaa cabasho ka muujiyay xaaska Enzo Ferrari ee Laura, iyagoo sheegay inay timaado warshadda ayna amarra siisay iyaga, ayna shaqadooda si toos ah uga wadan karin. Balse Enzo ayaa arrintaa ka xanaaqay. Intii uu sixi lahaa xaaskiisa, 5 nin ayuu shaqada ka yariyay, iyagiina ganacsi yar oo matoorada ah ayay ka bilaabeen magaalada Bologna. Lamborghini raggan ayuu u yimi, waxa uuna ku qanciyay fikradiisii, way ku raaceen, waana iyaga kuwa sameeyay gaariga. Baabuurkii ugu horreeyay ee 350 GT si fiican ayaa loo soo dhaweeyay. 13 macaamiil ayaa isla markiiba iibsaday baabuurka, 120 kalena waa ay dalbadeen. Intaa kadib 1967 waxay sameeyeen Lamborghini Miura oo ay aad ugu soo shaabaxeen. 764 gaari ayayna ka gadeen noocaas. 1988 ayay dhiseen gaarigooda ugu caansanaa, waana Lamborghini Countach. Waxa uu ahaa gaarigii ugu horreeyay ee daaqadihiisa kor u furmaan, taasoo ahayd mid la yaab leh. Ayna ahayn ciddii ugu horreysay ee samaysay noocaas, ayna aad u soo jiiteen bulshada, isagoo gaarigaas noqday mid ka mid ah baabuurta ugu caansan adduunka ilaa iyo hadda. Lamborghini waxa uu dhisay kambanigii uu rabay, kaasoo noqday kambani xifaaltan weyn kala dhaxeeya Ferrari, halkaas uu kaga argutay Enzo Ferrari. Waxaanu ka baranaynaa qisadan inaan qofna la yasin ama la liidin. Waxaa laga yaabaa in fikradda qofkaasi ay horumarku horseedi karto. Fadlan like saar muuqaalka, share garay oo nagu soo biir. Aad iyo aad baad u mahadsantahay.